بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله يشكر الناس لا يشكر الله. marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan uga mahadinaynaa guulaha ballaaran naga gaarsiiyay cadawga khawaarijta al-Habaab. waxaa maalmihii la soo dhaafay socda howlgallo barakaysan oo ka kala dhacay gobolada Jubbada Hoose iyo gobolka Bakool. haddii aan ka hormaro gobolka Jubbada Hoose, deegaan lagu magacaabo Lagta Caanoole ee hoos tagta degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ee qayb galbeedna kaga aadan Boole Xaaji, waxaa ka dhacay howlgal barakaysan ay iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kala duwan ee maamulka Jubbaland oo isugu jira daraawiish iyo nabad sugid. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban guutada Danab iyo qaybta 43aad oo iskaashanaya ayaa wixii howlgal barakaysan ka fulin halkaas, waxayna ku burburiyeen cadawga khawaarijta halkaas oo ahayd saldhig ay ku tababaraan maleeshiyaadkooda ummadana halkaas ay ka gumaadaan ay uga shaqeeyaan. halkaas burburin ayaa lagu sameeyay, cadawgina waxa looga furto hub badan. sidaas oo kalena halkaas waxa la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanayo ciidanka Jubbaland oo ka kooban hay'adda nabad sugidda iyo daraawiishta Jubbaland. sidaas oo kale deegaan lagu magacaabo Qaadir Cadde ee hoos tagta degmada Xudur ee gobolka Bakool ee waqooyi galbeed kaga aadan magaalada Xudur, waxa ka dhacay howlgal qorsheysan ay fuliyeen guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. halkaasna waxa ka dhacay qaniimo badan, cadawga waxa looga furtay hub isugu jiro AK47, BKM iyo Sabano. sidaas oo kale waxa la burburiyay godad ay ku dhuumaaleysanayeen khawaarijta cadawga al-Habaab. sidaas oo kale maalmaha waxa badanayay isu soo dhiibayaasha ka faa'iideysanaya cafiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxa badanayay inay khawaarijta ay kala dhuuntaan isu soo dhiibaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamul goboleedyada. sidaas oo kale in isu soo dhiibaan dadka deegaanka ayagoo weydiisanaya cafis. nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri: at-taa'ibu min ad-dambi kama la dhanba lahu. qofka toobadkeena wuxuu la mid yahay asagoo dambaabin. qof kasta oo cadawga Soomaaliyeed ka mid noqotay gaar ahaan khawaarijta al-Habaab, waxaan leenahay ciidamadiina isu soo dhiiba, shacabkiina la midooba, cafiska madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo cafiska dawladda Soomaaliya ka faa'iideysta. waxa la joogaa gabaawsiga khawaarijta al-Habaab, waxa la joogaa waqtiga dhamaanayeen. shacabka Soomaaliyeed waxa ugu bishaareynayna guulaha kala duwan ay gaaraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku farxaan, soo dhaweeyaan, kala shaqeeyaan. aad ama maasantiin. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.